أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. maanta waa maalin jumco ah, taariikhduna ay tahay 29 bishii shanaad 2020. rabbi hadduu idmo subxaana wa tacaala, waxaan halkaa ka bilaabaynaa qisooyinka nebiyada, annagoo sida ay u kala horhoreeyaan aan markaa u soo qaadan doono. nebi aadam baanu ka bilaabi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala. qisooyinka qur-aanka ku jira walaalayaal, khaasatan kuwa nebiyada looga sheekaynayo, waxaa ku sugan cibro qaadasho aad iyo aada u weyn. ilaahay isagoo tilmaamaya ayuu yidhi: laqad kaana fii qasasihim cibra. waxaa ku dhex sugan qisooyinkooda cibro qaadasho, wax lagu cibro qaato lagu waana qaato yay ugu jiraan liulil albaab, dadka caqliga u saaxiibka ah. maa kaana xadiidan yuftaraa, ma aha xadiid iyo sheeko iftara ah, ma aha sheeko maaweela ah, ma aha sheeko ciyaal lagu hurdisiiyo, ma aha sheeko dad ay casho ka soo daahday lagu sugsiiyo cashadooda. maa kaana xadiidan yuftaraa, xadiid la been guuriyey oo la seebeen abuurtay ma aha, walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday. tasdiiq waaye, rumayn waayo kii horeeyey ayuu markaa u rumayn. waa tafsiil, waa kala saarid, waa kala caddayn kulli shayin wahudan waraxmatan liqowmin yu'minuun. waa hanuun iyo naxariis buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, wuxuuna u yahay dadka mu'miniinta ah qoom rumaynayo aaminaya. qisooyinka noocaas ah walaalayaal, qisooyinka nebiyada aad iyo aad ha loo dhuuxo. yaynan noqon wax la been abuur, yaynan noqonin wax lagu maaweelo, yaysan noqonin waxyaabo ay dadku ku sheekaystaan keliya, laakiin ha noqoto cibro, ha noqoto wax lagu waana qaato, ha noqoto wax qofka uu noloshiisa ku bedelo, ha noqdo wuxuu dacwada dhibka iyo mashaakilka loo soo maray uu ku ogaado. aayad kale ayuu rabbi ku yidhi: wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusul ma nuthabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi alxaqu wamawcidatun wadikraa lilmu'miniin. kulligood waan kuu qisoonaynaa, wakullan naqusu calayka, korkaagaan kaaga sheekaynaynaa rasuulkii allow, min anbaa'i rusuli, rusushan wararkooda, maa nuthabitu bihi fu'aadak, waxaan laabtaada ku sugno. haddii lagu caayay ayagaa la caayay, meeqa nebi ayaa la dilay, meeqa nebi ayaa la aflagaadeeyey oo la caayay, subxaana allah. meeqa nebi ayaa dhulkii uu deganaa laga saaray, meeqa nebiyaa la tahdiiday oo loo hanjabay, laa ilaaha ila allah. saa darteed rususha ayaanu wax ka tilmaami doonaa nebiyada, sida ilaah subxaana wa tacaala markii dambe nasriga iyo guusha uu u siiyey. waxaanu ka bilaabaynaa nebi aadam calayhi salaam. ilaahay asagoo tilmaamaya aadam, qur-aankana qisooyin fara badan uu noogu sheegay, ayuu kitaabkiisa xakiimka ku yidhi: ina allaha astafaa aadama. ilaahay aadam wuu doortay, nuux buu doortay, iyo wa aala cimraan cala alcaalamiin,
caalamka oo dhan dushii ayuu ilaahay ka doortay subxaanahu wa tacaala. doorashada waa inay xagga alla kaaga timaadaa. rususha allah doortay. aadam ilaahay baa doortay buu yidhi ilaah, ina allaha astafaa aadama. aadam baa ilaahay doortay. walaalayaal, qisada aadam calayhi salaam saan la socona aabbana ma laha, hooyana ma laha. rabbi subxaanahu wa tacaala xikmadiisu markay keentay inuu khaliif abuuro, wax arlada khaliif ku noqda, ayuu malaa'igta la hadlay. wuxuu ku yidhi malaa'igay, innii jaacilun fi lardi khaliifa. arlada ayaan khaliif ku samaynayaa ee ogaada. khaliif waa wax isbedela, waa wax arlada camira, waa wax adduunka soo dega, waa wax jilba jilba dhaxla ayaan samaynayaa. markaasay dhaheen atajcalu fiiha, allow arlada ma yeelaysaa man yufsidu fiiha, wax fasahaadinaya, wayasfiku dimaa, oo dhiig qubahaya miyaad arlada ku abuuraysaa. wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lak. rabbow annagaa ku nasahayna, waa kugu tasbiixsanaynaa, mahaddaada annagoo ku dheehan, wanuqadisu laka, allow waan ku hufayna, allow waa ku tahiraynaa, wax aadan u qalmin, ceeb oo dhan baan kaa nasahaynaa. rabbiyow maxay cabirayaan inaan la abuurin? hanagu abuurin bay leeyihiin, annagaa ku hufayna. rabbow annagaa ku nasahayna, rabbiyow annagaa kugu tasbiixsanayna. qaala innii aclamu maa laa taclamuun. waxaadan ogeyn ayaan ogahay buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. war malaa'igay ka jooga oo suga, war malaa'igay u kaadiya, waxaadan idinku cilmi u lahayn, waxaadan aqoon iyo ogaalkiinu gaarin ayaan anigu markaa ogahaye. ilaahay markuu sidaa yidhi subxaanahu wa tacaala, arrintaana uu u sheegay malaa'igtii, ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu khalqay aadam. aadam sida la tilmaamay qur-aanku dhowr aayadood ayuu rabbi noo caddeeyey, noona tilmaamay waxyaabihii laga khalqay aadam. rabbi subxaanahu wa tacaala mar aayadaha qaarkood asagoo noo tilmaamaya abuurkii aadam, ayaa rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, oo kitaabkiisa xakiimka ah noogu tilmaamay, oo kitaabkiisa munasalka uu noogu caddeeyey khalqigii aadam iyo wixii markaa laga abuuray. rabbi asagoo tilmaamaya ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala, walaqad khalaqna alinsaana min salsaalin min xama'in masnuun. insaankii waan abuurnay, waxaan ka abuurnay salsaal, waa dhoobo, min xama'in masnuun, waa dhoobo xama ah oo madoobaatay, haddana masnuun ahoo tagayur ku dhacay oo markaa doorsoontay. taasaanu ka khalaqnay buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. aayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan inuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala, insaankii waan abuurnay, waxaanu ka abuurnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, min tiinin laazib, dhoob qoyan. dhoob qoyan ayaan markaa ka abuurnay. aayadaha kale wuxuu rabbi ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala, khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar. dhoobo oo jilay oo kala noqotay, dhoobo adkaatay ayaan rabbi ka abuurnay buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. khalaqa alinsaana min salsaal, waa dhoobo oo kalfakhaar, mar allaala marka gacanta saa loogu dhufto qaw dhahaysa oo markaa yeeraysa. taasaan aadan ka abuurnay. say noqotaba ilaa subxaanahu wa tacaala aayadaha wuxuu ku tilmaamayaa marna inay ahayd dhoob laazib ah, mar inay ahayd mid tagayuroo doorsoon ku dhacay. markii hore waa la soo qaaday, waa la qoyey, meel baa la dhigay, tagayur baa ku dhacay, cabbaar baa loo sii daayey, intaa ka bacdi bay jili oo kala noqotay iyo mid markaa dhawaaqaysa. nebi aadam calayhi salaam ilaahay wuu abuuray subxaanahu wa tacaala. mar allaala markii la abuuray aadam oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu khalqay, yaa waxaa la damcay malaa'igta hadalkii ay sheegayeen in markaa laga gungaaro. hadalkii ay tilmaamayeen ama ay sheegayeen in laga gungaaro, taasaa ilaahi subxaanahu wa tacaala doonay oo malaa'igta uu xaggooda loo bandhigo. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu baray aadam asmaa'dii oo dhan, waa markii la khalqay. wacallama aadama alasmaa'a kullaha, magacyadii oo dhan ayaa markaa la baray. intaa kadib baa malaa'igtii loo bandhigay
oo la yiri ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin malaa'igay ii sheega bal oo warrama kuwan magacyaalkooda haddaatiin kuwa markaa run sheegaya qaaluu subxaanaka laa cilma lana waxay dheen rabbow adaa hufan ilaahow adigaa nasahan anagu cilmi uma lihin ilaa wixii aadna bartay maahane alla caliim ahoo xikmad badan ayaad markaa tahay tasbiix baa la baray inay rabbi hufaan baa la baray inay ilaahay nasahaan baa la baray laa yacsuuna allah maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiinse aadam ilaahay xikmad kale ayuu ula jeeday waxaysan ayagu kasii waayeen ayuu kasii doonaa waxay ayagu ogaan waayeen ayuu ogaan doonaa sidaa darteed asmaa'dan la baray aadam calayhi salaam maxay ahaayeen asmaa'dan la baray ilaahay subxaanahu wa tacaala baa xaqiiqdii horta ku cilmi badan laakiin qolba meel bay markaa saartaa oo waxay leeyihiin waxa ilaahay baray subxaanahu wa tacaala ashyaa'da lagu dhaqmo oo adduunka iyo bani aadamku ay ku dhaqmayaan magacyaalkooda oo dhan kuwa kalena waa la sii sheegaa say noqotaba ilaah subxaanahu wa tacaala oo callama aadama alasmaa'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مركاسي دهن سبحانك لا علم لنا ربو أذاه فن أو نزهن الله عيب مليهد نصغان بات كنزهن تهي شرك مليهد لا علم لنا إلا ما علمتنا أذيك عليم حكيم آياتهي آدم وهيه الشيك بالليري bal magacyaalkan bal u sheeg malaa'igtan saa darteed buu aadam hadlay oo magacyaalkii u sheegay markaasuu u waramay uu waxyaabihii sheegay wacallama aadama alasmaa'a kullaha thumma caradahum cala almalaa'ikati faqaala ambi'uunii biasmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin markay ilaahay nasaheen oo ay dheen innaka anta alcaliimu alxakiim aadamow u waran buu dhahay ila subxaanahu wa tacaala magacyaalkooda u sheeg falamaa anba'ahum biasmaa'ihim markuu magacyadii tixay uu u sheegay kan kaasaa la dhahaa kan hebel baa la dhahaa kan xaalkiisu waa sida kan magacaasuu leeyahay mar allaala markuu arrintaasaa u sheegay aadam ilaa subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu meesha ka tilmaamay uuna ugu caddeeyey malaa'igta inuu ilaahay og yahay waxa dadku ay muujinayaan iyo waxa markaa la qarinaayo idan meeshii waxaa ka soo baxday aadam inuu ka cilmi batay malaa'igta waxaa meeshii ka caddaatay aadam inuu ka fadli batay malaa'igta waxaa meeshii ka caddaatay aadam inuu macallin u noqday malaa'igta saa darteed baa ilaahay wuxuu amray inay sujuudaan una sujuudaan aadam calayhi salaam rabbi malaa'igta wuxuu ku yiri u sujuuda aadam way sujuudeen amarkii allay qaateen ilaa ibliis mooyaane ibliis wuu diiday waa isweynaysiiyey kaafiriintu markaa ka mid noqday ibliis amarkii ilaahay waa diiday amarka allah inuu qaato waa diiday rabbi inuu amarkiisa u hoggaansamo wuu diiday u sujuud markii la yiri waa diiday sujuudda waa suuragal sujuudda caadiga in loola jeedo way dhici kartaa in taxiye iyo salaan loola jeedo say tahayba ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala aadam u sujuuda ayuu ilaahay malaa'igtii ku yiri way sujuudeen ilaa ibliis mooyaane waa diiday ibliis waa isweynaysiiyey aayadaha qaarkood waxay leeyihiin soo alla noo tilmaamay seen ugu sujuudayaa ana khayrun min khalaqtanii min naar wa khalaqtuhu min tiin see ugu sujuudaya anaa ka fiicane seen ugu sujuudaa aadam anaa ka khayr badane see ugu sujuudaa aadam anaa laandheera ahe saasoo markaa ula jeedaa waa kibir waa xaasidnimo waa qobweyni markaasuu dhahay ma u sujuudaayi see ugu sujuudaa mida dhooba ka abuurtay anaaba ka fiicane anaana markaa ka khayr badan aadam markiisaa ilaahay malaa'igtii u amray inay u sujuudaan amarkii ay qaateen oy markaa u sujuudeen ninka lagu magacaabo aadam ilaa sharafta ayuu siiyey karaamada iyo cizada ayuu markaa siiyey aadam marka meeshuu joogaa waa asaga keligii ayaa waxaa ka ah bani aadam makhluuq bani aadama oo la khalqa asagaa ugu horeeyey qofka bani aadamka ama dabciga bani aadamka lagu yaqaano waa cabsi iyo waxyaabo kaloo wehel la-aanta inay dhibayso bani aadamku waa isweheshadaa
bani aadamku waxaa insi loo yiri waa unsiga iyo wehelkay isweheshadaan waa isdugaalsadaan. aadam wuxuu u baahday inuu helo wax wehel markaa u noqda. ilaahay subxaanahu wa tacaala wehel ayuu u abuuray, uu u sameeyey, waxaana loo qalqay oo loo sameeyey waa xaawo. saa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xakiimka uu noogu tilmaamay. kitaabkiisa xakiimka ayuu rabbi noogu tilmaamay inuu u abuuray lamaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala lamaantii uu u abuuray aadamna xaaway markaa noqotay. xaawo ayay markaa noqotay. saa darteed buu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. maxaa loogu abuuray xaawo? inuu markaa ku xasilo, inuu markaa ku dego ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay mar allaala markii uu u abuuray ee xaawo ayaa waxaa labadoodaba la faray, ilaahayna uu faray inay jannada galaan. sidoo kale waxaa la tilmaamaa mar allaala markii aadam uu jiiftay, asagoo jiifa ayaa feertiisa midda ugu koraysa waxaa laga soo bixiyey. inta la soo bixiyey yaa laga abuuray xaawo. hilib baa markaa loogu bedelay meesha. wuu hurday hurdo. mar allaala markuu soo kacay aadam madaxiisa agtii oo ay naagi fadhiso ayuu markaa arkay ilaahay u abuuray. feertiisaa laga abuuray. waa la weydiiyo waxaa la yidhi, wuu weydiiyey marka hore wuxuu yidhi oo yaa tahay? markaasay tiri waxaan ahay naag ama qof dumar ah. maxaa kuu sugnaaday buu yidhi. waa lay khalqay buu yidhi. ayay tiri maxaa laguu khalqay buu yidhi. markaasay tiri litaskuna ilaya, inaad ii xasisho, inaad markaa ii degtaa lay qalqay. malaa'igtii waxay dheen fiiriya bal aan ogaano cilmigiisee. ila marka hore arkeen, intay u yimideen bay waxay dhaheen aadamow magaceed? markaasuu yidhi xaawaa la yidhaahdaa. markaasaa waxay dheen maxaa loo yidhi xaawo? markaasaa wuxuu yidhi waxaa laga khalqay shay nool, shay xayi ah oo nool ayaa markaa laga qalqay. saa darteed baa malaa'igta waxay ku imtixaameen intaa aadam calayhi salaam. ilaahay asagoo intaa kadib noo sii wada qisadii aadam baa wuxuu yidhi waqulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna. aadamow bax, adi ii zawjadaada askuna oo jannada dega, ordaha oo jannada dega, meel allaala meeshaad doontaan ka cuna, ayadoo raqad ah oo waasic ah, laakiin hal geed ha u dhowaanina. walaa taqrabaa haadihi shajara, geeddaa ha u dhowaanina. haddaad u dhowaataan aadam iyo xaawo waxaad ka mid noqonaysaan dhaalimiintaad ka mid ahaanaysaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. saa darteed aadam fiiri iyo xaawo ballanta ilaahay u qaaday. walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casmaa. aadam ballan baa ilaahay la galay, ballan baa loo qaaday, wuu hilmaamay. fanasiya walam najid lahu casman, go-aan adag kama helin. waxaanu ku niri buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala yaa aadam ina haadaa caduwun laka walizawjik. aadamow kan ma u jeedaa ibliiska ah? cadow buu kuu yahay adi iyo zawjadaadaba. jannada yuusan idinka soo saarin. haddaad jannada uu idinka soo sarood ka soo baxdaan waad dhibtoonaysaan. falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa. ballanada loo qaaday fiiri, ma gaajoonaysid aadamow, dharna ma weynaysid. asaga iyo xaawo ayagoo jannada ku jira yaa nuur rabbaani ilaahay kala qarinayo labis looga dhigay. ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa. ma haraadaysid oo ma oomaysid, kuleelna ku qabsan maayo. geedkaa iska ilaali, meeshaa ku jir. shaydaan baa yimid. allahu akbar. fawaswasa lahum shaytaan. shaydaan baa waswaasiyey. shaydaan ayaa waswaasiyey buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. aadam intuu u galay jannada, intii meeshii uu joogay uu ugu tegay, ayaa wuxuu ku yidhi fawaswasa lahum shaytaan. muxuu saa u yeelayaa? liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw-aatihimaa waqaala maa nahaakumaa rabbukumaa. war aadam iyo xaawow, rabbigiin idinkagama reebin geedkan. laba si ayuu diidayaa.
laba arin sababtood baa lidinkugu diiday ilaa an takuuna malakayn aw takuuna min alkhaalidiin kuwa waaray inaad noqotaan buu ilaahayna diidan yahay khaalidiin inaad noqotaan iyo wuxuu ilaahay idiin diidan yahay 200 inaad noqotaan malakayn ama malakayn inaad noqotaan iyo inaad waartaan macnaha boqoro inaad noqotaan waa labada waxyaabood ee bani aadamka ay u jecel yihiin inuu adduunka sii joogno waan sii jecelnahay in la saadeeyo madaxna la ka dhigo taana markaa waa jecelnahay sida ilaahay tilmaamay subhanahu wa ta'ala illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma wa udart iblisa ardib badana iblis waa u dhaartay muxuu ku yiri aniga mid idin naseexaynayaan ahay wardantiina ka shaqaynaya haddaad doontaa yeel haddaad doontaanna ka taga innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala guruur iyo kado ayuu u raariciyey geeddii bay aadeen geeddii bay dhadhamiyeen falamaa daaqa ashajara badad lahumaa saw-aatuhumaa xumaantoodii baa u muuqatay cawraadkoodii baa u muuqday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala wadafiqaa yakhsifaani calayhimaa min waraqi aljanna waxay guda galeen in caleemaha jannada ay korkooda ku dhadhajiyaan ay cawraadkooda ku qarqariyaan tii markaa guda galeen buu yiri ila subhanahu wa ta'ala rabbi baa u soo naadiyay allah soo dhawaaqay allah cirka kor uga soo naadiyay allah yiri alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin warmiyana idin la ballan miyanan idin ka reebin geedkan war geedkan ha cunina ma idin dhihino miyanan idin ku dhin shaytaanku cadow cadaabanimadiisu ay caddahay ayuu idin yahay isla markii tawbay u degdegeen aadami xaaw isla markii alla yu carareen rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin waxay dheen rabbiyo nafteeni baan dulminay rabbu hadaadan noo dambi dhaafin rabbu hadaadan noo naxariisan rabbu haddaan iska kaaya cafinin khasiriintan ka mid noqonayna allah waa khasaarayna allah waa noo dhamaatay ibliis la'anahu allah mar allah markuu rabbi gafka ka galay markuu qaladkii ku dhacay meeshuu uga degdegi lahaa tawbo meeshuu ilaahay u carari lahaa subhanahu wa ta'ala wuxuu bilaabay ama uu guda galayba inuu dhaarto inuu bani aadamka soo u dhumin lahaa uu ku dadaalo ama aadam calayhi salaam iyo xaawa labadoodaba waxay u degdegeen in ilaahay subhanahu wa ta'ala cafiyo inay dambi dhaaf alla weydiistaan inay ilaahay subhanahu wa ta'ala ay baryaan dambigii ay galeen inuu ilaahay ka saamaxo subhanahu wa ta'ala mar alla markuu ilaahay noo tilmaamay oo malaa'iktu ay sujuuday dhamaantood ibliisna uu diiday rabbi wuxuu ku yiri ibliisow maxaa kugu dhacay maxaa xaalkaagu yahay maxaad u diidood u ahaan weysay kuwa sujuuda micigooda lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun buu yiri si ugu sujuudaya ima aha awla ima aha ima banaana inaan u sujuudo bashar aad dhoobo xama'ahu madoobaatay oo doorsoontay aad ka abuurtay qaala fakhruj minha fa innaka rajim dhaqaaq hoobo deg rajim baa tahay buu dhahay subhanahu wa ta'ala rajmi waa ku dhacay waxaa ku dhacay inuu ilaahay soo fogeeyo subhanahu wa ta'ala in laga fogeeyo naxariista ilaahay inta maxaa loogu daray wa inna alayka la'nata ila yawmiddin subhanallah korkaaga nacaladeeda ahaatay ila maalinta yawmiddin laga gaaro nacalada ilaahay yaa korkaaga ku sugan waa naxariista allo laga fogaado allow ii kaadi buu yiri inta la iska soo bixinayo waa lagu kaadin ilaa waqtigii lagugu talagalay buu ilaahay yiri ilaahayow baadiyeentaad ibaadiyeysay darteed la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmaciin waa dhumin doonaa buu yiri arladan u qurxin doonaa dhammaantoodna waa baadiyeyn doonaa ballantaasuu noo qaaday ciilkaasuu noo qaba tiyuu maanta ku socdaa tiyuu maanta rabaa aabaheen ayuu waswaasiyey aabaheen buu mutaqaanaa geed alla u diiday cunsiiyey aabaheen buu janno ka soo saaray ibliis la'anahu allah waa ninka noocaas oo kale ah aadam calayhi salaam iyo xaawo markay ilaahay u soo laabteen oo ay tawba keeneen oo ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha u horsadeen ay dheen rabbow nafteenii baan dulminay
haddaadan noo dembi dhaafin noona naxariisanin khasiriintaan ka mid noqonaynaa qaala ahbituu bacdukum libacdin caduw hoos u dagaalayna dhammaantiinba hoobta waa laga soo saaray meeshay saarnaayeen manqabkii sharaftii ay joogeen waa laga soo dejiyey jannadii iyo meeshii saray ku jireen hoos baa looga soo dhaadhiciyey ihbituu bacdukum libacdin cadow hoos u dega qaarkiin qaar kaleu cadow u yahaye walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin mustaqar iyo makaanu sugnaashaa idiin sugnaatay io raaxo intii waqti laga gaaro marka horeba waxaa loogu talagalay arlada waxaa loo geliyey jannada waxaa dhici karta in loo geliyo tadriib in lasoo tababaro cadow inuu leeyahay meelaha laga soo gelaayo laakiin asalkiisii bilowgiisiiba intaan la qalqin saan soo tilmaannay ilaahi subxaanahu wa tacaala aadam markuu malaa'igtu u sheegayo muxuu yidhi innii jaacilun fi lardi hee khaliifa arladan khaliifa ku samaynaya wax isbedelo camiran arlada ku samayn dhulkaa loogu talagalay fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukhrajuun waad ku noolaanaysaan waad ku dhimanaysaan waa laydinka soo saarayaa fiiha taxyawn arladaad ku noolaanaysaan wa fiiha tamuutuun gudaheedaad ku dhimanaysaan wa minha tukhrajuuna xaggeedana laydinka soo bixinayaa ayuu dhaha ilah subxaanahu wa tacaala aadam iyo xawa la soo dejiyey hoosaa la keenay adduunkay u soo degeen midna hindiyu ku soo degay midna waxay ku soo degtay jidda iyo meelaha waxyaabo kalena waa lasii tilmaamaa way israaraadiyeen way isdalbeen waa la kala qubay yaa yeelay ibliis waa la kala daadiyo waa la kala fogeeyey yaa yeelay waa cadowgeena saa darteed aadam calayhi salaam alla towbuu waafajiyey xaawo towbuu ilaahay waafajiyey subxaanahu wa tacaala adduunkay ku soo degeen way isheleen oo way isgarteen nolol cusub baa la aas-aasayaa aadam iyo xaawo caruurtii dhalashadooda imaanaysa hadda waxay joogaan waa dhulka waxay joogaan meel hoose sidaa darteed baa taariikhda gobolka mid ah waxay tilmaamaysaa aadam waa la soo dejiyey hindiyu kusoo dhacay ayuu kusoo degay xawo ayadana meesha umun xawo la yiraahdo oo jiddo ku taalay kusoo degtay ibliis asagana waa lasoo hoobiyey mar allaala markii uu soo degay uu dhulka saa u yimid wuu kaadiyey bay leeyihiin taariikhda qaar meeshuu ku kaadiyeyna tubaakaa ka soo dhalatay geedkan tubaakada ayaa markaa ka soo baxday dadka tubaaka cunayaasha ahow sigaar cabayaasha ahow ogaada xaaladdu inay sidaa tahay sidaa darteed aadam iyo xawo oo dhulka soo degay oo nolol cusub aas-aasaya yaan qaybta labaad kasii bilaabi doonaa haddii rabbi idmo balse meesha ha inoo joogto haddii rabbi idmo subxaanahu wa tacaala wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam